warbixinta dhammaystiran waa tanaa. lambarka aad wacda lama heli karo fadlan mar kale ku soo celi. halow laba sac koor waxaa la soo sheegay gabar 20 jir in lagu waayay buuraha Salexbuur dhankooda waqooyi waxaan rabaa jigboontyada dhan in la xiro waayaha tali filimkan waxaa lagu tarjumay maxaa u siikan taliya wuxuu leeyahay gabar 2 sano jir oo 20 sano ka hor dhig hadda la raadiyo leeyahay muxuu ka wadiyaa marka war adiga saas laguma dhihin waxaa lagu dhahaa 2 sac ka hor ayaa waxaa labaa gabar 20 jir taliyana saas ayuu ku dhahay adiga wax fahmayno jigle hadda wax ma maqashidoodii oo iga qabsi geedka marka adile wax dhageysa marka aniga hadda ay dhibta adiga maxaa qabanaysaa hooshada raaca ayaan ku dhahay iga qaba geedkan soco gacankayga leema sii kartaa waxaan xoo ahay usiga anuu shaqoon jirin oo dira joog guriya leesin ma wadataa waa wataa maxaa dhacay kaala wadaad xal ma soo cabta wariyaa hooy ad dadka maxaa ka rabtaa iska fasax ayaan ku dhahay hayahay bay war fiiri kiiska adiga lagu diray iyo kiiska isma laho ee dantaada raaco kan kuma ogolo waayilkan waxaan ku nacay dadka dhan waa naga fasaxaa haye kuwii saaxiibada waa kuwaana way imaadeen miya haye qamarjiyaalka xaafadda halkee loo socdaa maanta biryahan waad ogtihiin xaafadda waxaa ka jiro afduub gabdhaha idinkana wareegiina wuu batay haddaba booliska waxay wadaan baaritaan waxaa loo baahan yahay idinkana taxadirkiina inuu badnaado aniga waad ii aqaanaa socda wejigiina dhaafsiye haddii kalen xabsigaas ku wada arkeenaa idinkii annaga taliya gabdhaha maqan 8 gabdhood waa wax ma lagu daraayo miya war adiga shaqadaada raaco sheekadan oo dhan waxay dhammaanaysaa markaa adiga hooshaada qabsato adiga hooshaada qabsaneen soco ay soo hortaagnaan soco wejiga dhaafsiye bax
aawe waan soo baxday aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooy ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa fanbroch.com waxaa loo baahan yahay afkaada inaad ka adkaatid carabkaadana waa inuu daacad noqdaa adiga labadiiba lagaama haayo maxaad ku tooran tahay marka kaalay waad og tahaynoo lacagta in ay wax xun tahay sida anigoo kale maad iska ilaalisid marka walaalkii beesada jumla oo keeni baabuurka la isoo bixiyeen see waaye lacagta faa'iido ah marka hal isbuuc kadib aan keenaa ballan waaye waa ku barya baabuurka la isoo bix walaalka weynna u sheegno arrinta waryaa walaalka weyn afkaaga ku soo qaadina ku dhahay socna hay taagnaani okay maashi يا منالو ديكسي بوس لعقتي waa soo dhiibi waatan haye haajarahe boosow kalsooni ma jirta maxay taa lacagtan inaad qayb ka isticmaasho aniga uguma talagelin boojada ka baxay beesada meesheeda soo waa kala booskayga isbedeli ma laaci baa taa ku dhaa macaan aye waatana egraal naqahayaa waa kuu dhigay hadda okay moo lacagtan miisaankeeda hadduu wax yar ka dhinnaa lahaa adigana miisaankaada ayaan qabyo ka dhigi lahaa kaamil ma ahaa waa kula socdaa boos khataraata adiga horta boosoo mid aa kuu sheego filinkan arkayso filin khatara waan ku yidhi maskaxoona ku socdaa dhagdhag waa filinka يا beelo midaanaa lacag lagu yeeshtaa oo saas ahaa aboo sawtanna ka warjarihe naga ya intee laga yimid boosow waxaa jirahe ya boosow boosow waxaa jirahe midaan dibadda laga keenay midda dalkeena haddii la isku daro waxay naqayaan ku yidhi faromjeena jag waay haddaa cabnaan ku yidhi macaanaan naqahayna dhibka ku haysta xawyaa marka sheekadana waa noo toosay annagana cirkaan galaa balaayaan naqaa markaas ya ma lee buush waryaa ganacsi ma noqdo yaryarooti in laga bilaabo ganacsigu wuxuu u baahan yahay karti iyo raganimo adigana waxaad rabtaa lacagteeda inaad ka taajirtid waryaa eygan bannaanka iga tuura inaan sii arka ma rabo naga tag lambarka aad wacda goobta adeega ayuu ka maqan yahay fadlan markale ku soo celi lambarka aad wacda goobta adeega ayuu ka maqan yahay fadlan markale ku soo celi cunugan xumooyar waxyaabaha uu igu sameeyey wax aan u dulqaadan kara maayo cunug xumooyaroo aniga agteeda ku soo koray in uu i khiyaana sideen ugu dulqaadanaa war siduu iga xanaajiyaan ku dhahay mid loo adkaysan kara maayo carootid looma baahna yaakha ganacsigiinna ayaaba arrintan ku dhisan waxaa loo baahan yahay marka inanka yar inaad fursad kala siiso yaa badanaa xagguu ka baxay hadda mee inankii korkaada
ayuu jiraa waa soo laalaadiyaan ku dhahay si hadhow kale kuwa iqayaani lahay ay ugu waana qaataan yaa koraa xaggee intee xushmad aan askarigan u haayo ayaan adiga kugu cafiyey maanta qabso raashinkan cun siduu raashin u jecel yahay siiba madaxa ariga inuu jajabsado ayuu rabaa waryaa sax soo maaha hadalkayga tali walaalka weyn waa i garaaca ciidanku garaaci mayse raashinkaaga tartiibu cun adiga dhib badan aninku adduunyada ayaaba sidaan iska ah asiga wuu shaqaynayaa faa'iidadana anaa qaadanayo laakiin wuxuu isku dayayaa aniga inuu ikoobiyeeyo oo hantidayda qaato waryaa noolow taliyo walaalka weyliga celi waa i garaaca ciidanku garaaci mayse calaalka iska daaynayo raashinkaaga cunniyo taliyaha ayaa kuu jooga cidi waxba kuguma samayn karto boolis ayaa jooga meesha waa ku see cabsida ayaanba aniga farxad ka helaa cidan cabsanaynina agtayda maba ku noolaan karto staalingna agtiisa ayaa wax walba laga helaa nololna agtiisa ayay taallaa adiga ninkan arrimihiisa inaad isku murjisid maba loo baahnabo wax badanaan la hadlay hadalkeygana wuu maqli waayey anaa soo koriya aan leena dili taliya ogow haddaadan raashinkan cunin aniga waan kaa xumaanayaa nabadan ku leeyahay lambarka aad wacday qadka ayuu ka maqayaan fadlan markale ku celi waxaan u socdaa xero agoon waxaanan u baahanaa carruurtaas agoonta in aan wax soo siiyo 15 maalin ayaa maqnaanaya meesha aan aadayo u socda haddana wax anteenaa ma laha ha iga welwelin 28 ayay maqan tahay wax akhbaarni kama hayo sidee ku dhacday waa inaan raadiyaa halkaan ma joogi karo tikid bangalore ii jar jooji gaariga yaa mudane waxaan ku dhahay gaariga jooji dhaqso maxaad sugaysaa jooji gaariga
mudana waan ku salaamay magacayga waa yuuba qaaday salaanta kowda ii soo fariisa marka hore salka dhulka dhig agoonta aanu goobta ku xanaanayno mid ka mid ah waxaa tiri xaflada loo dhigo deetana waa aan la dabaaldegayaa haddii aad lacag bixinaysana diyaar ayaanu nahay oo marka waa kaa qaadanaynaa wax badan xitaa kaama rabna xitaa 5 kun haddaan siiso waa iska okay يا نقول روا هل مليون العجا ووري mudane waxaan u baahanahay gabadhan akhbaarteeda mudane hal daqiiqa meesha sii fadhi waa kuu soo noqonayaa adoo mahadsan gudaha soo gal mudane waa kan ninkan kuu sheegayay waa ku salaamay dhib male fariiso lakshmika waa gabadheennoo kale wax badan ayay halkan joogtay laakiin waxaan ku weydiinaa lakshmika ilaa intee aqoon u leedahay rashmika saaxiibteeda waaye markay iga soo tegaysan waxay dhahday 15 maalmood ayaan maqnaanaa NGO-ga agoonyada ayaan aadayaa haddana 28 ay maqan tahay wax akhbaarna kama hay telefoonkeedana uu dansan yahay meelaan ka raadiya ma aqaano dhibaatadaasna dhexdooda ugu jiraan waa sax waa runtaa midda koowaad rashmika annaga si toos nalama shaqaynayn NGO-ga waxaa la qabanaya 14 bisha laakiin iyada waxay tiri 16 ayaan imaanayaa howlo gaara ayaan soo qabsanayaa sidaas ayay nooga maqan tahay maalintaas wixii ka dambeeyeyna il aan leenahay ma saarin mudan maxaa godley sidee wax jiraan ii sheeg xaqiiqada ayaan kuu sheegayaa annaga xataa markaan wayne fajac ayaan lana loqotay arrintan waana fili weyne dacwad ayaan geeyey saldhigga bisha 20 markay ahayd akhriso waatane mudane warqaddaan koobigeeda u baahanahay dhib ma laha saldhigga ayaad weydiisanaysaa annagaba way nooroon tahay inaad saldhigga tagtid maxaa yeele waxyaabo badan oon agoonta uga baahannahay ayaad noo soo fududaynaysaa waa kana kaarkayga haddii akhbaar hesho soo wacya waa mahadsan tahay saldhig waan aadaa وريا ما حدشت حضر وريا هيا مسنا حضر وريا حضر وريا وادق الشيخ انا يديك حضر ها مدني سلك سبور ayaan joogaa okay aniga ku soo wacay وريا ما hadashan maxaad la aamusantiin juliya tugada kala jira hal وريا adiga u baahnaa soo socota taliyaan rabaan inaan kulmo taliya hool ay ku jira xagga sii fariisa asiga ku iimaanaya haddii kala daawar maqlay sida kuwaan oo kale ayaa lagu yeelaa tali waa ku tuuganaan askan fasax anaga maxaa nagu haystaa ninkaas laaluush naga cune yaa way ka laaluusheeda ku cune kaasaa naga cune tali waxaan rabaa inaan kula hadlo qof walba meeshaan ma isaga soo fasaxaysaan adiga soo maahan ganaax ayaa ku saaran islaali baan ku leeyahay niyo orya ininka xagga fadhiista orya harun kuwan caawo dhan meeshaa ku jiraan ha sii deynin atooraa shaatiga cad meeshaan ma waxay kula noqotay kawaankii malayga oo aad farta iska taaganaysa waa saldhig boolis meesha waryaa naga soo fariiso igraan waqtali magacayga waa yuufa shahaada PhD na wataa aniga cilmiga iyo aqoontaada kuma aana weydiinin waxaad meeshan u timid kaliya ka hadal soo daa warka fiir tali
oh no waaba gabadhi muddada aan ku daba jirno lala'aa haye haddayto magacaaga waa ii sheegtay magacaaga muxuu bal marka liigu celi yuva adiga iyo gabadhan maxaa horta idinka dhexeeya gabadhan soo maha waa nolosheeda odagan shabaqa dhexduu ka taagan yahay kaalay gabadhan sheekadeeda marba dhinac ayay aadaysaa saldhigaanaa la geynaa waa laga wareejinaa saldhigan kale ayaa la geynaa horta gabadhan layska daba ka wareejinaya maxay tahay waa fahmi taliya maxaad ku hadlay war cilmiga aniga si fiican aan soo bartay aqoonna waan leeyahay afkaaga edab u yeel waryaa wax walba annaga waa la soconnaa cilmi iyo aqoonna adiga waa kaa badinaa adiga shaaticadaa soo xirnaa dembi ma geli kartid miyaana taliya maxaad ku hadlay gabadhan waa gabadha aan guursan rabo 29 maalmood iyo 2 saacadood ay maqan tahay intaanoo dhan adiga xaggee ku maqnay xaggee jirta taliya aniga dibadda ayaan ku maqnaa warbixin ayaan gudbinayay markaan soo laabtana arrintan ayaa lee sheegay ina gudbiye waxbuu kala gudbinaya wiilka dibadda lagu aadaa arunow kiiska markuu xoogaa yaro qabo baa la soo laabanaya waxaa leeyahay sheekadaba hadda ayaa la ii sheegay kaale annaga ma naga caqli badisaana maya taliya maxaad ku hadlay adiga ilaa hadda kuma fahmay ii kaadiba halo waxa kula hadlaya waa gaashaanla taliya waa ku maqlaa nin yuufaa la dhaha makuu yimid haa iminku horteeda fadhiyaaba arrintiisa waa inaad u xallisaa waa dhammaata anaa xallinaa taliya adiga taliyaha aniga iga sarreeyaad xiriir la leedahay sheekada meesha taallana waa kiis aad iyo aad u weyn hadduu adigu kugu caddaadana ciqaab aad u weynaa lagu marsiinaya waxbaa ka welonaya haarunow i dhegayso shanta raqam ee teleefonkaaga ugu dambayso 46 maahan mase waa qaldanahay bal ii sheeg adaan rabaa inaan ku weydiiye waad saxan tahay okay waa dhammaatay macluumaadka adiga iyo saaxiibadda inay dhex maray dhanka koolka marka ay noqoto waxaa soo baxday qoftaas marar badan inay ku soo wacday teleefanno kala gedisanna ay kaa soo wacday haddaba haddii aan warka kuu caddayo shakhsiga laga shakisan yahay oo tuunku soo galay waa adiga baasboorkayga waa kana arun iskaan ayaad marinaysaa waa kuubiyeynaysaa kadibna feelka ayaad ku diraysaa baasaboorkiisa amar waa fulinoo keliya wax kaloo weydiinaysa maa jira aan kaaga jawaabayo naga dahade feelka dacwada koobihiis meel war haddaad adiga gaashaanlaha xiriir la leedahay waxaad doontid miyaan kuu samaynayna waxba kuuma samaynayna niyo wax aan kuu qabana haba yaraatee ma jirto wejigaaga xunay dhaafsiye baan ku leehay soco tani adiga maxaa kaa qaldan adiga gabar oo keliya ayaad raadinaysaa laakiin aniga xaaladda aan ku suganahay ma dareemi karta ayaan ku dhahay adiga xaaladdaada marna way degan tahay marna way kacsan tahay laakiin aniga xaaladdeeda mar walba kor leewaay are aruno haa tali markaan il gaara u yeelanayo dhaqdhaqaaqaysa aniga shaki baan ka qaaday waayaa tali shan boqol iyo saddex 802 803 feelashaas oo dhammaystiran ayaan u baahanahay iila soo dhaqso taliyahan muxuu ahayn waabana daaliyoyaa markii 11aad ayuu gurigaan noo wadaa tali ninka gurigiisa waa kanaa tali ninka 10 maalmood ugu dambaysay dabagal ayaan ku hayay 5 maalmoodna gurigiisa ayuu ka maqnaa taleefankiisna 2 mar ayaa baaritaan ku sameeyey tali cabitaanka waa cawan arkoona lahaa arkoolo ku lahaa hercules ram ayaa la yidhahdaa miyo magaca iska baro magac may bedeleen waaye de tali guriga hal leeleen ayaa ku jiro leeleenkaasna ma shaqaynayo teeda kalena guriga habeenkii mugdi waaye haddii la imaadana waxmaba laga arkaayo habeenkii oo dhanna keligiis leeba daldalmana ani cabsiyow ii geliyeybo taasna runtahay waa aniga habeenkii oo dhanna muusika loo dhegaystaaba dhan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 d
masaakiinta aad sheegaysid maxaa ku dhacay meenaa taliya gabarta ninkaan usaa dila u maleeya aniga yaa allowr adaa shaqada noo qaban annagana waa iscasilaynaa marka artaliyow
see wax u jiraane see wax u jiraanuu ku leeyahay adaaba shaqadeeda ii qabanaaye inaad sacsiilasoo kuma qasbanine ee taliya adan kaa barta maano aniga anaa iga barata markaan shaqada ka fariistana booskayga artaa inaa geshi soo maaha haa tali maxaa tidhi may afka la iga soo dafo waxaan waa maxayna taliya joornaal lee waay gambaleelka aawe xagguu ku yaallaa albaabka gambaleelkiisaan ka wadaa waa kana taliya meeshaan isku yaalaa halow yaa joogo gurigan sidan u weyn markaan qiimayn ku sameeyey waxbaa meeshan ku duwan kolley waxay yihiin iyaga ayaa bannaankiis keeni doona waanu arki doonnaa mar kale gambaleelka ku dhufo yeeri ay tali haye oo tali igraan toiletka ayaan ku jiray soo gala haye galinaa maanta dhan bannaanka lay taagnaay gudaha wax ku jiro aan soo fiiriyeyba tali rasmika haddii akhbaar gashi inaad soo wacday ahayd anaa kuu maal lahaa soo maaha aniga hadda waajibkaygaan gudanayaa anigoo socdana waa aan kuu imid indhaha wax ka daawo keliya adiga anuu keligay inta waa imid mana ka faa'iidaysa si wanaagsan ayaad guriga u sharaxaysay beelaata kabanka dai maamay tali hataabanoo ku baryaa xiriirka ani rashmika ayuu quseeyaa markuu ku baryaa hataabanin micnahayga ani rashmika ayaan ku xiriiri jirnay khaasuu noo yahay okay sorry marka ka raalli noqo haddii aan kaa taabanay mar damba ma dhacayso dhalooyinka waaba arkooyaa maxaa ka soo dhadhamaayo maxaa ka soo dhamaay maana feelka gacanta kuway sii dhibniyo taliyan ku weydiiye maxaad cabaysaa hal beeg ii keena u baahanaaye tali igraan naqo waa is iloobee haddii aynu wada cabbi lahayn kafee ama shaah saacadda waa aragtaa sideedda ayaa madaxa kala sii baxday mar sideedda haddii la dhaafana kafee iyo shaah iyo waxyaaba noocaasa laguma laaban karo marka waxaan ku leeyahay ha isku dhibin waxba iska daa caadi baynu u sheekaysanaynaa haddii aan kiiska guda galna ka war tali rashmika wax akhbaar ma ka heshay ii sheeg yaqay tali sheekadan aniga waan ku wareeray madax xanuun ayaan ka qaaday 3 jeer ayaan salli kugu maaday adigana ma joogin sameeya marka aniga waa wareeray hawa saxanta waa timid ay fariiso maasanid aarun maxaa taagantaa feelasha maysiis kewa feelka waayde kewa maana keen adiga yuva faylkan waxaa ku qoran macluumaadkii markii rashmikaa la waayey dhacdada meeshan ku qoranna waxay ka dhacday saldhigga sharnistaa lagu magacaabo rag ayaa waxay isku dayay gabadha inay kufsadaan kufsi kadib ay aashata ku shubaan oo ay sidaas ku dilaan wayna ay baxsadeen ayagoo baxsadka ku jira ayaa meesha gaari soo maray raggii gaariga saarna ayaa arkay arrinta ayaga laftooda waa ay khalkhaleen meeshana waa ay ka baxsadeen waa kana adiga laftaada waa ila fiirin kartaa intaasoo keliya sheekadu maahan gabadhan ilaa hadda annaga ma aanan aqoonsan waxaase la sheegay gaari in lagu afduubtay gaariga dhexdiisana daraagis ayaan ka helnay daraagiska markii la helay kadibna baaritaan ayaa la sii sameeyey baaritaan markii la sameeyey qolyihii ee shaybaarka cilmiyeysan timaheeda iyo dhiiggeedii baaritaan ku sameeyeen rashmika ayadana waa ay islahan waayeen oo waa gabar kale haddaba la soco 5 maalin ayay markaas rashmika ay sii maqan tahay haddana shil ayaa waxuu ka dhacay waddada lagu magacaabo iyo shiluur haddaba shilkaasi qaabka u dhacan rabaa inaan wax yar kaaga taataabto gaari ayaa dab la qabadsiiyey gaarigaas 2 qofood ayaa saarnaa 2 qofoodna waa ay ku gubteen shaybaarka cilmiyeysan ayaan annaga u dirnay meydadkii 2 qofood mid ka mida ayaa rashmika ay islahaadeen ilaa haddase caddayn saxan oo aan hubno oo aan dhihi karno waa rashmika weli ma aysan soo bixin macluumaadkoo dhammaystiran waa kuwaana ilaag tali adinka rashmika ilaa hadda wax akhbaar ma ka helin miya waan dareemi karaa dhibaatada iyo xanuunka adiga aad dareemaysid laakiin waynu dadaalaynaa wixii aan soo baxana waan kula soo socodsiinaynaa waxbaa ka baqin adiga booliiska inaad ka shakisidna waa laga fiican yahay aniga rashmika darteeda wax walba waan samayn karaa la soco teeda kale waxaan ka shakisanahay baaritaankan adinka aad wadaan maba ku qanacsanaba waa wareersanay ordu shaa noo keen ay tali intee shaaka keena tali yaa waryaa waa ku fahmay masar yuva
koobiga warqadda aad i weydiisatay waa kana waa kuu keenay weliba si ay kalsooniya ku dheehan tahay qabsaan ku dhihi lahaa hadda asiyo ninkan cabitaan isla cawaayaan hadhowti maxaa kala tahay saldhiggaa laga wareeraa guriga taa waa laga dhumaan ku dhah warbixintan waa warbixin la hubo waana rasmi qabso tali waa ku barya waa iga codsi rashmikaa ii raadi waa u baahanahay 24 saacba hal mar ayaa laga rabaa saldhigga booliska inaad soo booqato annaga weli shaki ayaan kaa qabnaa saaxiib macaane la soco midaas haya tali ninkan yuu noo yahayna bal ii sheeg ninkan weligey maba arkima maanta ka hor inta muu ku arkin ya haa tali maxaa dhacayna baaritaan la wada ee hadda adi meel u socotay anima haddana iga shakis raalaaw tali kanna waxaan kaa rabaa isha inaad ku isradhaqaaqiisa la socoyaa waaya tali kan isha ku hay kan isha ku hay laisku jira haddaan cabitaan cawo wax ma u jeedaa markaani anagoo shaqo noo diraa markaas xaggee aadnaa saldhigga booliska nageeya tali shaqada ana waa ka cabsaa ee qof kale ma igu soo dirtid oo shaqadan ila qabto yaa mudano horta runta haddaan kuu sheego waqooyiga indiya ka soo bilow ilaa koonfurta indiya ganacsigaagoo keliya ka socda wax kale kama sideedaba dunidan qof markuu howl qabanayo wax kale kama raadiyo inuu caan noqdo oo keliya ayuu rabaa iyo mudano halkii taliyaha soo socday meesha ka carara walwalka iska daa waa dhankeenna asigabo haye socda heedig waa isku dhammaanta haye maanta aaggaygaad soo gashee shaqo khaldan oo istaalloon qabto miyaa jirto oo aad raadinaysid ii sheeg fadhiiso marba adiga kiis haddaad geshid boorso lacagaa ku xallisaa waa sidee maaniga dabagalka ugu samayn karaniyo shaqadaad u timid halkan ku qabo meelaha inaad fiifiiriso looma baahno kiis number 802 macluumaadkiisoo dhammaystiran iga dhegayso kuwa ciyaal suuqiina waxay damceen gabar inay kufsadaan aysiid ay ku shubaan kadibna ay dilaan oo weliba si cadoonnimo ay ula dhaqmaan nasiib wanaag goobta ayaan tagnay baastariintii baabuurkooda ayay ka baxsadeen baabuurka ayaan anaga gacanta ku dhignay ila fiiri adigana waayahay kiiskan maxaa iga qusaya aniga adiga si toosa inuusan kuu qusayn baa suurtagala laakiin dhanka kale marka laga eega qaab dadban ayuu kuu soo gelayaa kiis kalean kuu hayaa dhegaysa 803 ayaa la yidhaahdaa baabuur ayaa la qabtay baabuurkii dab ayaa la qabadsiiyey dadkii saarnaana gaarigaas waa lagu dhex gubay markan gudihiisa baaritaan ku samaynana waxaan ka dhex helnay 2 kiilo oo daraagisa gaariga dhexdiisa haddaad ka heshayna labada baabuurba adiga magacaaga ayay ku diiwaan gashanayeen ulujeedkaada muxuu yahay ulujeedkayga iska fahan waxaa laga yaabaa dhallinyarada hawshan inay ku lug leeyihiin haddii ay ku lug leeyihiin kiiskan qaraabaynayna dhan kalean u leexinaya dad kalean dusha ka saaraynaa kuwan aad arkaysid dhammaantooda waa aaka cabbaysan oo kale keebkana aniga ayaa farta ku hayo hoolaan aniga ogaan hadday qabtaanne dhammaantooda waa laynayaa oryaa baanka u keen waxaad alla kiiskanaan dib u fiiriyayoo adiga kiiskan shuqul iyo shaqo iskuma liidin waa lagugu soo qaldamay iminkasta ma waan iska dhaadhacaya hadda nabaday waxba ha iga qarinin asxaabtaada adiga kuu shaqaysa kiiskan hadday ku lug leeyihiin waan ka leexinana dad kalean dusha ka saarinayna soo qaraabay war
ها رشمكا وعملنا هلو رشمكا يوفا يوفا رشمكا. انت ور ازيدا ما Xagee joogtaa حد adiga? iga fiqyaaqay aniga waxaan joogaa meeshii hoodka jacaylka aan ku jili jirnay رشمكا يا وقف كل دواء ايشك ازيدا kaaliga soo gaaryaa رشمكا رشمكا رايش رايش رشمكا رشمكا حكي جوكا رشمكا حياتي كده waaw garaaca wadnahaaga markaan maqlaan ku dhaha aad iyo aadaan u farxaa aniga run ahaanti كان هذيك عيارتها هذا حد ما لها مياه aniga hadday ciyaartii xad leedahay kaas jecel maba lagu tilmaami kara soo ma ogidna jaceylka dhabtaa sidaan lee waa si fiican ii qabano xoog laabta ii geli yaaqay إلى أنت ilaa labadeen aan halka noqonin oon ku baryaa yaaqay ha ii diidin laabta ii geli aamusna yaahe jimicsiga jaceylkan ku guda jirnaaye جمسك جعل كلها كان هذيك واد وارنت مسك هذا ما فلسه ما لسه صعطة لو تدوجر تسينا عيارتي oho ninka saynisyahanka ahay xisaabiyu isku bedelay miya alla hore 7 jeer haddaa hore kugu soo ciyaaray markan waa markii 8 laakiin waxaa jira sheeg wixii jirano يا حجر ما أنتو كله aha ها وقرت أنا أقول ما قلت هاي لا شو هذا ما war أنت idaayan ku dhahay dhalashadeeda maba taqaani maalinkaa taabaan ha ii sheegina sheeg wixii jiro أوكي سوقي أنصح سوستي ما أنتو كله ما أنتو كله مسكحلي مشقين وسبين shan sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalintaad jacaylkiisoo bandhiganaysa wax badan inaa ogaa isoo kuma sheegin bandhigasho wacan ما هتسند hadda soo ma ogaanin inaan kaa tallaabo dheeree wax welibana aan ogahay ها أنا واحد من إلو لكن أديك واحد من إلو ذا كله qorshaha nolosheen oo dhan waan ogahay aniga رنت هذا مكان gacanka geedkaasaa u jeedid sanad guuridii ugu horreysay jacaylkeena ayaan abuurnay Ha. midkan kale oo dhankan naga xigana sanadkii labaad ayaa abuurnay kan Waa kalena sax. sanadka saddexaad kanna sanadka afraad kan hadda aan haynana waa sanadka shanaad xiriirka jacayl nabadeena naga dhexe sidaanoo kale ayuu u bulaalaya wuuna jiraa رنت هذا ما أنا هدي عندي من حتى حلا ماشي وقوبتي جعلك هاي صح ما ذلكي ahaa lamaano kasta hadday sidaan geed u abuuraan nabaad guurka ayaa dhammaanaya xaaladana oo kale ayay noqonaysaa رنت هذا ما أخبار تاني أنا قافافين أقول لك تذكرنا وشيء yaqi taas naga dhaaf ee hadda arrinkan wax noogu xiga noo sheeg صندوق صدى في سعدان وكل محاسب من نورت soo baxna kan anaa ku tusaayo yuufa sanadka hor xilligan oo kale waxaad iga ballan qaaday hadiyad lama filaan inaad isii doonto laakiin maxaad isiisaa maanta waxay ku beegneed ayaa aqoon weysa hadiyad miyaan kaa sugaaya maya kaama sugaayo horaan waxaa loo dhahaa dadka ad adagoo shaqadooda badan tahay jeceyl maskax maba u haayaanba ما أنت إقرأ لنا شقتكم رنت هذا أنا قام مشغول مكته haddii waan isgursanaynaa aan ku dhaha feelashaada intaa ku mashquulaysaaba waqtiga dhammaan goorme ilmi iska dhaleena ما سيدس مان شغلة هذا هاي سدح بيل أوكلية إيارسن كدي بس قرصنا لو بدنا الماس كده اللي نقول هاي الماس وإحنا قلنا هل تيم مكبدية عيال tolka ama ku badi rabnaa أنا ولا يا وحول بإنا إلو لكن أديك إنا كيلو ما معقول معنا ولا شيء ذاته أوكي أديك هديدة واو هاي ستايم محاول أحكي لها ويدينيس runta ii sheegay hadiyadda waxay tahay هرت قبلها وقلنا سي بدل ما تقانا دنيا نكون haa waan aqaana waa gabdhaha soomaaliyeed أوكي نصيب كويب هلنا لكن سيدك هلنا إنا أوجد أم بهنا إيشك waalidintooda ayaa u duceeyey waxaad ii sheegtaa aniga waxaad igu dooratay iyo qaabkaad ii jeclaatay intaba أوكي لما لهن عندها سوق قوة ماشي نستجع هكذا الفرن waay
maanta dareenkan farxadda leh ayaad isiisa midaan weliga arkay maan jecel fara badan waad isiisa run ahaantii aniga markii hore noloshayda keligay ayaan ahaa laakiin sidaa adiga uga soo birta waxaan helay adduunka waxaa ugu fiican dhiirigelinta waadnay dhiirigelisaa nolosheeda xataa adigaa bedelay soo ma ogid nolosheedaa tahay kafee sbeshalan kuu keenay hooy qacagsi oo sidaan miyaa u nasiib badanahayna aniga markaan isgursano kadib kafaygan adiga ii diyaarinaya soo maha raashii dhegeyso aroos maxaa ku sugay alaabtaa soo qaado gurigaan iska soo deg adiga magaalo kala degan tahay anigan magaalo taas waa la samayn karaa laakiin dhaqankeennii caadadeenna ayaan doorinaynaa oo ku ciyaaraynaa waxaa wanaagsan gabadha in la gursado ee guriga ninkeeda si toosee u imaado dhaqankii caadada reerkaygana aniganaan dumiyo diyaaru maahay run ahaantii halo marwe barnaamijkii berisu waxay 12 waayaa oo manjin beetaa lagu qabanaa soo ma hahe waaya bashkaar waan imaanayaa manjin beetaa maxaa laga wadaa carruurta yaroo 5 jirka ayaa lagu talaalaa ma isii geyn kartaana marka hore aniga waa inaad talaashaa kadib waa macquul inaan ku wado ilmaha 5 jirka ayaa lagu talaalaa adiga nin weyn ayaa taa soo moogid gacali maxaa diiday anagaba 5 sano ayaan jecelnahay haye meelowde oo waan iloobe hadda waxaad qasbantahay inaad talaashid okay 6 subaxnimo lee waay soo moogid waqtigaa ka dhiman 6 subaxnimo markay taa is soo diyaari saa hore igu wado haddana waan kaa sii tegayaa gacaliya bye bye ma bixi karaan hadda ilaa meeqay kugu qaadanay adiga hal saac camal ay igu qaadanaysaa okay ku sugan orod soo shaqayso socee باي قعلك اوكي مرو صباح من السودو صباح رمضان هاي شكل أي شيء maxaa kugu dhacayna sidee wax u jiraan maxaa ku bedelay akhbaar xun ayaan kuu hayaa ii sheeg maxaa way akhbaarta xun marka hore taada ii sheeg aniga kuuma sheegaya marka hore adaa ii sheegaysid okay fariiso هي ii sheeg aan dhageystay marka hore adii sheegna maxaa dhacay akhbaarta xun la hormariyaa farxadna waa la daba mariyaa waaw barnaamijka aad soo baartay aan ku dhaha london ayaaba laga codsanayaaba murugada ku haysa maxay tahay marka isbuuca soo socda london aad ka casuuman tahay inaa murugta lama baahna ilaal noqo aniga meeshas uma socdo sabab sababtaas dee laba maamad sideen kaaga maqnada adiga waa la rabtaa u malaynaya qabo bal telefoonka anaa kuu sheegaaye marka hore warqaddan fiiri shaqo n j o ayaan u socdaa oo weliba xero agoon ah misna waa duur wax anteenana ma laha 15 cishana waan ku maqnaanayaa jaceylkeena in laysku xiisa ayuu ku qurux badan yahay haddaana laysku xiisan mustaqbalkeena ma dhismi karo adna iska bax anna aan iska bax anagoo isku xiisanayaan imaanayna jaceylkan sidaasuu ku sii kordhayaa gacaliye yuufa aniga uma baahniya balan been iyo marmarsiyo haddaba iga ballanqaad soo london ma aadaysidna runtana ka hadalyaa aniga waxaan rabaa xidhiirkeenna in aan ka midho dhalin wax iska socsocda inuu noqdo ma rabo uun ku baryaa marka meeshaas inaa aadda isku day ha igu diidin gacali aniga sidaasaan jeclahay rash run ahaantii dareen ay tigelisay okay waan baxayaa waaw jaceylka awooddiisa leen waayo macaankayga habise yuufa markaan la joogo aniga farxad ayaan dareema markuu
rulmiya qoftan shil ma gashi mise waa la afduubtay sidai wax jiraan gabadhan ma la xoogi may macqulina ma imaana horta may ila maaha mama way imaanay way soo laabanay anigaa og magacayga Anjale ayaa la lahaa bisle ayaana u socday meeshasna program ayaan ku qaban rabaa balse gaariga ayaa meesha iiga jabay roob aad u xooganna waa uu daaya guryo ayaa meelahan ka fiiriyay balse waxaan arkay gurigaaga oo nalka daaran yahay sidaas darteed ayaan halkan ugu soo leexday marka caawa mii caawinaysaa oo meelaan jiifto ma isiin kartaa walaalow waan ku baryayaa waan dhibanahay mudane waan soo qabaysanayaa dhinacaas waa mudane caadi matid biyaanooga si wanaagsan ayaa u garaaci taqaanaa ee gurigan kaligaa miyaad degan tahay
iskaabul miyaa tahay oo iga raali noqo qoftaas waa xaaskaagaan u malaynaya waaw waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ayaad ka heshaa soo maaha mudane anigaba xilliga kuleejka waxyaabahaas ayaan aad u xiisayn jiray adiga waxaan u malaynayaa inaad arrimaha jaceylka ka hesho hadda muusiga ayaa garaacaysaa sidoo kale qaabkaa guriga u sharaxda ayaan ka dareemay iga raali naqa mudane waxaan u malaynayaa hadal inaan kugu wareeriyo balse dhib ma lah biris wax ayaan sheekaysanaynaa habeen wanaagsan maxaa albaabka waa xirayaa furay waan ku salaamay magacaygu waa Anjali Joseph waxaan u socday Bisley program ayaa meeshaas ku lahaa balse gaariga ayaa iga halaabay caaw gurigaaga ma jiifan karaan adigoo raali ah fanbroch.com inaan soo qabaysta ayaan rabaa qoftan xaaskaaga miyaa mudane waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ayaad ka heshaayaan u malaynaya mudane iga raali naqa hadal inaan kugu wareeriyaan u malaynayaa biris wax ayaan sheekaysanaynaa habeen wanaagsan
qoftan xaaskaaga miya dhib malan beriyaan wada hadlaynaa isbitooraha wuxuu ii sheegay gabadhan shil baawur inay sila galbeey ku dhimatay xal mar gurigayga sidee ku imaatay Angelia. Iya, number dia save gare. Ano mau save gare ni? Iya, waliat qofs number kada aqoon ma lihin. Ya save gare. Iya, nalal kaya idar. igaraali noqo ninka gaariga ii sameynaya ee soo wacay waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo garabkaad dhisisay teeda kale saaka waa hurdaysay inaan ku qaso ayaan diidanaa sidaas darteedaan kaaga aamuso balse ma aqaan waxaan kuugu mahadceliyo garab weyn ayaad ii gashay markaan imaanaya albaabka waa uu furnaa adigana waa maqneed marka waxaan sugayay intaad ka imaanayso waana kuu mahadcelinaya runaantii ilaa wanaag fara badan ayaad hore iigu samaysay teeda kale waxaan rajaynayaa mar uun inaad iigu timaado gobolkan degana sidaad ii wanaajisa oo kale ayaan kuu wanaajin lahaa haddii aadan imaanayn xataa anaa kugu qasbi doono waad arkaysaa
hadda waan degdegsanaya dad fara badanna way sugayaan marka kulanti danbaan ku leeyahay bye bye دكتور حكيت جوكتا واكو بريا ايماو ايوه معاك ugu dhacay يا اخي دكتور هذا ايمان انا وان دمنا dhimashada sheegaysa maxaa waaye يا اخي دكتور فاهم واكو بريا غريغيغما واكو بريا ايماو دكتور يا waxaan rajaynayaa mar uun inaad gobolka aad degan ay ugu soo booqato haddii aad ii imaamaysa xataa aniga ayaa kuu qasbaya waad arki doontaa يوفا باك فرح يوفا واسيق يوفا حكو داعي يوفا اوه دكتور اقرا لنا هي هرس ولا يا اريا حيتا سيدان هي شيك حيك ولا حتى ملقه دكتور حتى شيك تهرا خلاص قديم ما مسنته arag wuxuu sheegaa heeraaqlaad beel bax orod soo qubays kadib waa sheekaysan يا اخي غوريغا ولا الجوغا dad kala ku nool gurigeyga ifaan dhageysa warkaa kuu sheegay qaado soo qubaysa kadib ii imaw markaas sheekaysanaan soco warkaas waa laga roonyay kafeegan cab ariyaa dhibka ku haysta xawiya horta saaka yaraaqraad iyo waxaa loo jooga inaan sheegaysay horta adig ma aaminsantahay yaraaqraadka waa laga yaaba aaminsana nolol walbo iftiin leh mugdi waa uu ku jira kama maqno waxaa jira waxyaabo inay dhacaan aad u malaysid aana dhicaynin ka waran adiga waxyaabahaasoo kale ma aragta haa waa arkay weliba xalay ayaan waa kana dhibka ku haysta ka waran waxyaabaha adigu ku fikiraysa dumalaysaa si xaqiiqa inay u dhacayaan waxyaabahan oo kale inay kugu dhicdaa rabta qamrigan iyo inaa kaligaa tahay iska dhaaf markaas kadib okey ku naqa wax baa hagaagaya waana sababtaan ku leeyahay kaliga guriga ku noolaan ina kelimo iska dhaafaan ku yir يا أخي أنا كلي جميل ليش ميكا يا هايستا سو موجود aniga waxba fartada ku soo fiiqi kowdhe muraayada iska fiiri isku mujayda islaanka la hal yiri habana qabta adige marka hore adiga isfiiri stresska ku haayo iyo muuqaalkaaga soo ogya habana kugu dhac aniga horta marka hore waxaan ku sheegay stresska adiga ku haayo inaad iska saarta kadib nin wanaagsan naqayaan ku yiri oo waliba shaqaysahayo laakiin haddii stresska maalin kasta aad isku wado waa waalahay waalidaadana bacay qashina aroorihi haddana waxaa ku soo diraa jandani naftaada idaa ka fikirayso adduunkaaba sidaan iska eh rashmakaana maalin uun waa helaysaa laakiin cabitaanka raacabaysa iska dhaaf nin wanaagsanaa naqahe hay naftaada ka dhex diraya waa sii bax
halo warheedha mudana yuvayo labadan kiis ee aan gacanta ku haya sidaan hadda ugu lifaaqayay gabadha adiga kaa maqanay rashmika madax wareer ayaan qaadnay departmentigoo dhan raggii ka shaqaynaya waa ay wada wareereen waxna waa ka soo saari waayeen hal taariko ayaa baabuur badan loo wada isticmaalay oo lagu dhejiyey iyada oo laga dhigay inay wada leeyihiin annaga baaritaankiisaan u wadnay waxaa noo soo baxday arrin aan ka yaabnay arrintaasna wax kale maahan gabadha adiga kaa maqan iyo labada gabdhood ee shilka gale baabuurka lagu gubay hal isbuuc ayaa la wada diiwaan geliyey annaga baaritaanka sidaan u wadnayna sheekada 3 bilood ayay nala gaartay xiritaankii kiiska ayaana hadda taaganba waayihii aaw saaxiibadeeda meel ma ku sheegtaan yuva saaxiibow aad iyo aad baan horta uga xumahay inaan kuu sheegay xitaa aad bay ugu adkayd laakiin runta haddii aan kuu sheego rashmika waa ay geeriyootay shil baabuur ayayna ku dhimatay master uv annagu haddaynu nahay booliska waan dadaalnay adigana isdeji shaqadeenna waa ka soo baxna annaga kolley haye taliyaa waa ku salaami kiisaska feelashooda aad haysid ma iska soo wareejisid maxaa kuu dhacay waxaana soo diray booskeena stalin ee feelasha aad haysid nagu soo wareeji annaga waryaada idinkii meesha maala yacni baad ku haysaan nimanyo waxaad doontaan ayaad rabtaa inaad iska sheegtaan soomaan haddaad filal u baahantihin maa si degan aniga ii weydiisaan filasha gudahay ku jiraan orda soo qaata maxaad la taagantihin master uv meesha sii fadhi waan kuu soo laabanay hal daqiiqaya waryaa idinka doqoma ayaa tihiin sheeka yaraad soo maqlaysaan kiiskaad noo bumbuuninaysaan waryaa anaga baxraan la gelina caqli ma lihdin waxaad tihiin haba yaraatee ma jirtee raash la'aantaada aniga sideen ku noolaada ii sheeg maxaad ii cidlaysay adigaan kuu baahnaa dogtee hadda dunidan keligeyga maxaan kaala adiga maxaa kugu dhacayna maxaad samaynaysaa qof aqoon leh ayaa tahay xataa 10 daqiiq haddii aan soo dahay isma maarayn kartid miya waxyaabahan aad nafsadada kala dhicinaysa maxay yihiin aniga yuva aan ahay laakiin adiga yaa tahay ii sheeg ditoorasi jandani ayaa ahay waxaan isoo diray ditoor ashoog sidaasaan halkaan u imaaday ahay raashmika maaragta haddii aan damco agtada naa madaxtaa waa liga hor istaago qoftaana iga hor istaagayso garbni kaama rabe meeshaan isaga tag yuva aniga yuva lama yidhaahdo yuvaana aqoon uma lihi ee dhibka badan iga daa oo kuu sheega haddaba hana isoo dabagelin maxaad samaynaysaa yuufa jooji ayaan kula gaale adiga yaa tahay markaad nolosheeda soo dhexgelaysid aqoon maad ii leedahay may soo maha looma baaha aniga garab inaad siiso rasmika aniga jeceylkayga ayay ahayd dareemaha jecel ay siisan la'aantiisa maba noolaan kari teeda kale waxaan kuu sheegaa
dareenkaan aniga dareemaayo adiga iska daayay kun dictor haddii la keeno dareemahaas ma iga baabi'i karaan adiga nolosheeda maxaad ka taqaanaa jeceyl maxaad ka taqaanaa aniga waxaan dareemaya adiga ma dareemi kartaa may marka ugu dambaysa waan kuu digaa meeshaan isaga tag mar dambane ha ku soo laaban guriga haddaba baa ku sheegay out gurigan aad u jeed oo sidaan u weyn ayada oo keliya ayaa leh waxaana ku dugan xusuusteeda oo keliya doctor ashoog aniga wuxuu ii kaa soo diray inaan ku xanaaneeyo igaraal noqo shalay si qaldan ayaan kula dhaqmay xilligaasna waa cabsanaa waxaan samaynaya iyo wax kale ma kala ogeen waa ku baryaha ii qabanin yuufa adiga waxaad ku nooshahay xasuusihii hore doontan waxaa loo baahan yahay biyaha korkooda inay kor sobeyso laakiin doontu mar haddii ay biyi soo galaan way quusaysaa adigana waxyaalihii hore iska iloow kaale adiga gurigana maxaad u nadiifisay ii sheeg waxaas waa caadi teeda kale sidaan gurigan u nadiifiyey haddii aan qalbigaaga u nadiifin lahay way ii dhacan lahayd doonta aa saarneedna xasuusahanoo idil ayaa quusiyey weyna la degtay rashmika ayaa waa ii sheeg qoftaan waa jeceylkayga waa noloshayda waa wadnahayga waa dareemahayga wax walba ayay ii tahay qoftaan ma iloobi karo waa noloshayda qoftaan caadi maaha noloshaadoo dhanna xasuusaheeda ayaa qaateen soo maaha dabcan hadalkayga waa sax nolosha wixii kaa taga oo keliyaha maahayn ee waa waxaad haysato anaga derbi ayaan jebinaa si aan albaab uga furanno laakiin adiga noloshaada albaabadeedoo idil waad soo xirtay misna derbi ayaad ku wareejisay ugu yaraan waxa ila ficnaan lahayd riyadeeda xataa inaad rumayso intaas ma garan weyde maxaad ka waddaa waxaan ka wadaa rashmikaa riyadeeda haddii aad dhammaystirto adigana waad caafimaadaysaa aha waad saxan tahay jaandani hadda raja eed gelisay marka garab maigu siinaysaa nolosheeda inaan wax ka beddelo oo ku baryaa garab ayaan kaaga baahannahay garmaysiinay noloshaada shalay iyo tamaantaba waa buundada aad beri uga gudbi lahayd waxaana loo baahan yahay buundadaas si tartiib ah inaad uga gudubto si aad noloshaada u dhisato yes waad saxan tahay weli rashmika miyaa soo xasuusanaysaa run ahaantii inaan iloow isma barin meel walba aan tago wax walboon sameeya ayadalan soo xasuusanaa haddaysan ii soo laabin xataa lagama yaabo jecelkeeda inagu baaba'o mar walba qalbigay ayay ku jirtaa rashmika boolisku xaggooda way ka dhimatay laakiin taas aniga ma aaminsane waxaan aaminsannahay maalin un inay ii soo laaban doonto oo agteeda imaanayso sideedaba rajada waa qayb nolosha ka mid ah si aad nolosha horumar ugu gaartidna waxyaabihii hore waa inaad maskaxda ku haysataa balse saamayn aysan kugu yeelanin marnaba waad saxan tahay jandani haddii mar walba sidaan aad ila joogto qalbigayga aniga waan la hadli karaa laakiin runta haddii aan kuu sheego qalbigayga waxa ku jira adiga ma fahmi kartid mana dareemi kartid aniga waxaan dareemayo waan fahmi karaa weliba in badan maxaa yeele dadka siday kuu maleeyaan adiga ma tiid waxaad tahay nin aqli badan weliba geesi ah yes waad saxan tahay hadda soo bax aniga qorshanoo samaynayo nakeen soo bax suraan qorshe maba loo baahno ee waxaa loo baahan yahay hadaf nolosha rashmikaa oo dhan waa inaad ka soo baxdaa maxaan ka soo baxaa iftiinka nolosheedoo dhan mugdi ayuu isku beddelay ee hadda maxaan sameeyaa adiga ii sheeg jaandane intaan aniga jecel siiyey in ka badan ayaed ayaa i siisay sidaasay tahayna
weligeeda wax ma ii weydiisanin aniga waxay iga bari jirtay waqti inaan la qaato nolosha quruxda badan aan ku fikiraya ayad inaan la qaato iima suurtogelin haddana waxaan sameeyey ma aqaano yuufa hadda leesoo kuma lehen waxyaabihii hore oo dhan iska ilo maxaa kugu dhacay raashmika qalbigayga dhagax kama aysan dhigin teeda kale haddii ay dhagax ka dhigilayd maanta adigu ma kula hadleen waqtina ma kula qaadan lahayn laakiin mugdi iftiin ma noqdo yuufa ifahan aniga raashmika hal riyo ayaan ku riyo jirna marka macquul ma tahay hal qof riyadaas inoo baabi'iyo hal qof markii uu riyoodo riyo oo keliya ayaa lagu tilmaamaa balse laba qof markii ay riyoodaan riyo laguma tilmaamee xaqiiq ayaa lagu tilmaamaa dadka qaar waxaa jiro su'aalo isweydiiye haddana jawaabo aan heli karin dadna jawaabihii ay haystaan su'aalihii ayay heli karin qaarkoodna labadaba ma haayaan noloshoodana wareer ayay ku sugan tahay adigana run ahaantii waxaa ku wanaagsan xusuusii hore yuufa 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 istaag aniga mar walba waxaan jeclahay xasuusaan inaan iskiloo iska baabiyo laakiin maxaan baabiya xasuusiya ay daba taagan adigana arrintan garab igu siin karo ee garab sii jaantine oo ku barya waxyaabihii la soo dhaafay haddii la oloobi karo dictor ma waloo baahnaan lahayn xilligaas waa runta laakiin familkaaga xaggee ku nool yihiin anigaa ku soo tusinayo waadna arki doontaa familkaaga aawe familkayga 20 sano kor ayaan meeshan ku waayey shilkaasna wuxuu ahaa shilka nolosheeda beddelay oo sidaan iga dhigay xilligaas aniga waan yaraa mana xasuusan karin familkayga markay igu fogaadeen aniga aadaan u cidlooday keligaygaan noqday yuufa aadaan ugu xumahay isdeji waan ku baryaa waxaa la dhahay dadkii rafaad soo mara ayaa raaxa arka adigana waxaad isku daydaa fikraddan kelinimadaad iska dhaadhicisay inaad iska saarto sidoo kale waxaad iska dhaadhicisaa inaad nolol samaysato weliba jaceyl maxaa yeele markaas waxaad helaysaa lamaano daacad ah cidladaana waad ka baxaysaa nolol qurux badana waad ku noolaanaysaa markaas waaye adiga diyaar muu tahay qoftaas inaad ii noqoto maxaa tiri waxaan kaa rabaa cimriga inta ka dhiman garabkayga inaad taagnaato taas day dhici lahayd way wanaagsanaan lahayd jaandani aniga raashimka nolosheenna waxay ahayd sida hal beej oo kale laakiin adiga waad ka duwan tahay noocaas braawo jaandani braawo waad ka baxsatay si fiican ayaad u garaacday muusigayga iyo muusigaaga ayaad isku dartay muusig macaan ayaad ka soo saartay waxaad ogaataa dhaawacayga muusigan leh inuu dhayi karo haye maya yuufaa balse waxaad ogaataa laxanka iyo muusikadaad arkayso waa hibo laysa siiyey run ahaantii muusikadan aad diyaarsana waan ka helay aniga teeda kale hadalkii aad shalay igu lahayd run ahaantii aniga waan ka soo fikiray balse adiga sidee kula tahay micnaaga maxaa ka hadlaysa ilaa hadda kuma fahmin adiga shalay waxaad idhahda waxaan rabaa gacalisadeeda inaad noqotid anigana sidoo kale gacalisadeeda inaan noqdo diyaar ayaan u ahay waxaa lagaaga baahan yahay baraatig fara badan inaad samayso sidoo kale heese wada jirna aan qaadno si noloshan inta ka dhima farxaddaa nagu noolaan
kaale adiga goormeed imaade lama filaamiya mar hore ayaan guriga imaaday kafaayaan kuu sameeyey xataa intaasoo dhan kama warhaysid miya adiga iga raali noqo okay thanks maanta waxaan ku faraxsanahay inay kalsoonidaada dib kuugu soo laabato waana waxaan ka helay run ahaantii beela waaye teeda kale xaaladaada ka waran bad waa sidaas sheegtay waa wanaagsanahay mar labaad ayaan xasiloon dareemay jaceylkaaga iyo dareemahaaga ayaan ku caafimaadee wax walbana adigaa sabab u ah waadna ku mahadsan tahay aniga tatooreysa ayaan ahay shaqadeeda oo keliya ayaan qabsaday wax kale ma samayn no waad qaldan tahay jaandini xaggay ditoor kama tihid ee waxaad ka tahay qoftaan jeclahay walwalka iska dhaaf mar walba garabkaaga ayaan ahay berit waa inaad ii timaadaa waxaan kuu diyaari lama filaan aad u qurux badan lama filaan ah lama filaan ah lama filaan ayaan kuu diyaariyey jaandini u kaadi lama filaan waqti hore ayaa timidee haay lama filaanka ay haysa in sugi waayno saa darteedan ku soo baxay qalbigaaga sida uxan oo kale ayuu qurxoon yahay qabso marka bannaanka lama taagnaana wuu qurux badan yahay soo gudub okay jaandini maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay marka hore su'aalo oo keliya aan isweydii jiray laakiin jawaabihii dhan adiga ayaa siiyey wax walbana adiga ayaa sabab u ah nolosheedani adiga ayaan kuu hibeeyey la soco laakiin dhible amaan ku soo jeedaa oo dad kale arkaan iyo faa walwalka iska dhaaf guriga cid kale ma joogto kaligaa maa degan tahay adiga ila joogano 10 daqiiqa sugaa freesha iska soo dhiga okay haddii aadan ii imaan xataa aniga ayaa kugu qasbaaya si walba ahaataba guriga berito waa inaad iigu timaadaa lama filaan ayaan kuu diyaariyey nolosha inaan kula wadaago diyaar ayaan u ahay kaale adiga yaa tahay waa aniga jaandani ayaan ahay
dadkan yayihiin ii sheeg yayihiin dadkan aniga rashmakaa iyo anjeli saaxiib isku dhow ayaan ahaan maalin maalmaha ka mida ayaa nala soo wacay waxaan noola sheegay rashmakaa inay geeriyootay waan aamini weyne run ahaantii gabadhaas dil iyo kufsi ayaa lasugu daray balse arrintaas booliska way caddayn waayeen waxayna ka dhigeen shil oo keliya anjeli waxay heshay kiiskaas caddeemo ku saabsan waxayna rabtay dibadda inay u soo saarto laakiin arrinta waa la ogaaday shil baabuur ayaa lagu dilay qabrigeeda xataa ma tegin aniga meeshaan iska lahayn arrintiina xaliya ayaaba nafsadeenna baxar sii gashay markii aan rabay adiga inaan ku imaado wax walba kuu sheegana adigaaba xaalad kale ku sugnayd run ahaantii sidaas darteed ayaan aniga wax walba kaaga qariyey dhibaatadaasoo dhanna kaaga soo saaray hadda dadkaas waxaa loo baahan yahay xaqooda in loo soo dhiciyo waana adiga qofka keliya ee gabdhaas xaqooda u soo dhicin karo waa ku barya xaqooda u soo dhici waan ogahay karti ayaad leedahay arrintaana wax badan ayaad ka qaban kartaa waa ku barya wax ka qaba baabuurtoo dhan hal taarika ayaa ku wada dheganay meeshii la raba in la dhaho waa la kufsado waa la dila arrintii oo dhan shil baabuur ayay ka dhigeen nuv haddaan runta kuu sheego rashmikaa way gooriyootay shil baabuur ayayna ku dhimatay angelina shil baabuur ayaa lagu dilay maadaama ay runta ogaatay Christopher Stalin. mudan warka jag igu soo dhamxad ii haysaa waxaan rabaa isbuucan gudihiisa qof dhimashadiisa in joornaal lagu soo daawaco weli beejka horta horeeya beejka ugu horreeya in lagu soo xusayo ma sheegi kara laakiin ninkaas inuu dhimanayo waan kuu sheegaa anaa kaa hub ho waa 5 milyan lacaga maxaa dhacam kugu yartahay 25 milyan ku haya laakiin goormay ku siinaan taqaanaa markaad hawsha soo qabato shaqadan oo kale weligii hore uma aanan soo arkin diilkaanna magaaladan lagumaba arkaba see waaye laakiin qof kale dil rabo yaa waa ii sheeg baysadan qaaliga lagu qaadi waayo waa kana fiiri array waa waray adiga ma soo waalatay macnaa isbitaalka waalid ma lagu keenaa ninkaanaad ka hadlayso qofku yaa ma taqaanaa iyo qofkaad la hadlayso waryaa milyamada dad bixisata shaqadan kuma qabanaya ninkaas adigaa ka ag dhow si fududna ku dili kartaa marka hayga diidan ku baryaa barka mali waay tan kuleela ay qabto banaanka iyo bix adaa beri jira idida lagu soo daabacaa ballan waa qaa'in war kaali war anigoo stalin TRB ah miyo 25 lag
igu qiimeeyey macquul maaha warkaali booskaada miyaad buu ogolaatay 25 lag in lagu qiimeeyo yuu yahay ninkaas yuusan noqon karaa يا مدنو أنا وربحن كوسو أرورنا وأنا كوكينا بري ورنقتك دقن آياتها برك المليون waxaan kaa rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan warbixintiisa oo kaamil ah in aad igu keento haddii kalena waad dhimanaysaa anaa dabaal haddaan diiday yaa kaale aniga muubu dilkayga qorshaynaya yuu yahay horta yuusan noqon karaa yaa waaye ninkan anigaaba u baahane ku aaway anaa ku rabo malaayga cayayaanka ayuu cunaa malaaygana bini'aadanka ayaa cunaa malaayga wuxuu gaadaa cayayaanka bini'aadankana waxay gaataan malaayga cayayaankana bini'aadanka waxay cunaan markuu dhinto ciiddana ka hoos maro Chandni! Yuva! anigu waxaan ahay qofka dunida ugu farxadda badan anjeli rashmika qofka dilkooda ka dambeeya ayaan hadda soo dilay ka warane mahadsanid maadaama aad maanta xaqooda u soo dhicisay yes 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 Chandni! hadalkaad ii sheegtay run ayuu ahaa anigana nolol cusub ayaan galay haddii aad ila joogtidna waan isbeddelayaa cabsida ugu badan ay hayse ma taqaanaa inaad adeeg iigu fogaato maxaa yeelay cidladii ayaan ku soo noqonaya haddaad iigu fogaato agtaada aniga waxaan ka ahay jaceylkaaga oo keliya laakiin agteeda
wax walba ayaad ka tahay adiga hadda miiga tegaysa soo maaha jandini ii jawaabayno jandini ila hadal jandini 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 kuwaawe Chandini! 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 yuvow xaggee aadahay ee maanta o dhan aan ku raadihay aniga soo kuma dhahin qofka kula kulansiiha haddaa kula kulansiiha kow dheh ina kembar soo ayaa taagnaani soo kuma dhino qofka kula kulansiiha waa kana yuufaa la yidhaha ninkan titoorasa jandani ahay barasho wanaagsan jandani waay magacayga titoor maxaa ku dhacayna anigaa kuu sharaxaya titoore cudurkan waa cudur aad iyo aad halis u ah waad saxan tahay anaa hore waxaan u dhahay gabar la yidhaaho jaandani aad kula kulansiiha laakiin wuxuuba niyeystaba jaandaniydii inay u timid kadibna ee la joogto oo asigaa malaystaba ahaa aniga waaba ogaaba tan waaliyoo keliya inaysan ku ekayneen waali lagu daray ay tahay hadda maxaan annaga samaynaa oo nala gudboon ditore kuwaawe ditore aw jandini ii sheeg aw jandinideeda titoras jandini waa tan maan يا جاندني واتنا مجد مي حقوق دع بين يا تيشي يا زاني جاندني واقنا قفتان جاندني زمان جاندني واتر تاجر دكتور اديق حتى قينا لوين يوفا او جاندني كبر يعني لا هي يا دكتور استاهلا انا قاعد كسو دل اديق هادو حدونيسا جاندني انا تيجي سوما كاميله او جاندني حكيت جيس مرقر حاسكيga ayaa tiiga fogsatan waxdoonaysa jandani inay tiiga fogsato حكيت ku qalis iisheg weerishi iisheg aw jandani u baahnay aw حكيت iisheg sida ayaan ku dhahay sida maxaad ugu dhigantay منالي دكتور
waxaad sheegtaa wejigayga sidaa maxaa ka dhigay sheeg ditore muraydan wax badanaa ka khaldan aniga wejigayga sidaan maxaa ka dhigay sheeg ditore yuufaw walwalka faraha badan iska dhaaf daawo dheeraadaan ku siinayo ya maxay dhahday ay daawo dheeraada lagu siiyaa bas waay aniga yaadin dacweynaa dhammaantiina isbitaalkaan maho waa xidha aniga dhimashaa naga raali naqahe titorow cabitaanu ka orod okay waaya aniga ay dhammaantiina waa idin baabina waa yeelatii dhigteen waa yeelfiin wejiga sidaad u gasheen aniga sidaan mahayn cunug dhalinyaraha iska hajiray waad i baabiiseen yuufaw oo ku barya mahaan ii fadhiiso waa caafimaade walwalka faraha iska dhaaf keen ayo cabitaankan qawban isqabooji tartiibkaa naso wiilkayga yuufaw nasiinaa u baahantaa kow dheh tartiib u seexo iska seexaa lugaha fidi bal titor dhegaysa bal wiilkan 10 daqiiqa kabacdi waa soo naaxa caafimaadkiisana okay waa waardiya okay ninka horta muddo 2 sanaan daaweeyay aniga markuu miirkiisa wax yar soo laabtane wuxuu ilaahay tagto hore wejigayga sidaa maxaa ka dhigay ii sheeg waayaha baaba waxaad iiga sheegaysaa sheekooyinka qoraayo dhan qiyaali ayay ahaayeen miya hadda annaga dhankeena haddii laga hadlaa waxaan qiyaalayna la yihiin laakiin dhankiisa ma taha waxaana u dhacaya dhan wuxuu u malayaa wax run inay yihiin horta ninkaa muddada 2 sanaan daaweeyay aniga maskaxdiisa iyo waxay samaynayso dhan aniga waxaan ka diyaariyey barnaamijkaasna hadda ku tusaa indhaaga ku arag bal stalin yuva ninkuu waa dila u dhahayso kan maaha haydi toore stalin haye idinkoo maatan ii fadhiistahe enjandaniye horta yuufa dadkuu malaysahay mar walba inay la kulmaan waa kuwaan hortaada fadhiyaan ninkuu dhahayana waa soo dila ee starlin lagu magacaabo waa ka asigan hortaadoo fadhiya doctore bukaanka xaaladiisa bal iiga war isbitaal yuva siduu kuula dhaqmi jiray ii sheeg markii hore run ahaantii si wanaagsan ayuu ila dhaqmay ugu horrayn saldhigga booliska ayuu iigu yimid rashmika arrimaheeda ayuu wax iga weydiiyey aniga asagana waa ballannay gurigiisa ayaan aaday gurigiisa markaan tegana labadii kiisaan gacanta ku hayay ayaan oga sheekeeyey hawsha markay ii soo dhammaatay kadib anigoo soo baxaya ayaan waxaan arkay digtoorka oo gudaha soo galaaya waxayna ahayd markii ugu horraysay oo aan aniga digtoorka kulanno 3 bilood kadibna digtoorkaan kulannay arrimaha wuxuu iiga sheekeeyey yuva iyo markaas xaaladiisu siday ahayd haya tali tartiibkaagii booskayga ayaa u baahan feelasha wiilashii intii aan la sheekaysanay oo aan gudaha ku jiray ayuu asaga inta faylashaydii gacanta ku dhigay iskala dhaqaajiyey dib markaan u soo laabtay ayaan eegay waana maalinta koowaad oo aniga shakiga uu galay oo aan ogaaday yuva inay wax ka qaldan yihiin yuva aad iyo aad ayaan oga xunnahay run ahaantii baaritaanka waa soo gebagabeynay waxaana noo caddaatay rashmika inay shil baabur ku geeriyootay baaritaan markii aan samaynayna caddaymihii oo dhammaystiran ayaan soo aruurin haddana waa kuwana iga qabso shil may dhahde maxaa loo kufso waay kadibna loo dili waay markaas ama logsiyo laga faa'idaystaa haadi toore markuu ani ila kulmaybo rasmiga akhbaar ma ka heshay maya ma ka helin akhbaar ilaa hadda kama helin maya okay kaarkayga waa kana haddii akhbaar hesho ila soo socodsiiya aya okay kaararkuu isiiye waa kuwaan nin shaqaalahayga ka mid a ayuu lacag soo siiyey si uu ninkaas aniga ii dilo
gaalkan siduu ku nool yahay anigaa mar hore dilay aniga iyo ninkaas wax xiriir inagama dhexeeyo laakiin mid ayaa jirta mudane qof aad igu muhiim ah ayaa iga maqan marka igu soo duceey si aan u helo gabadhaas aniga ninkaan markaan arka shaki ayaa i galay taliyaha ayaan la kulmay kadibna adiga ayaan ku imid horta minaamid nii sheeg ninkan daqiiqad maskaxdiisu waa fiican tahay daqiiqadda kalena waa isbeddelay caafimaadkiisana meel aan ku tilmaami karna ma lahanaan ku yidhi aniga horta arrimihiisa wax xiise iguma hayaan aniga waxaan xiiseeyaa oo keliya lacag okay nabadey doctor cudurkan haleele maxaa sababa inaan ogaanaan rabnaayo unugyada maskaxda ayaa dhaawac ka soo gaaray horta maskaxda bila'aadanka xibno aad u fara badan iyo dareemo badanaa ku jiraan dareemaha hadda idiin sheegane waxaa bannaanka uu soo saaro unugyada qofka maskaxdiisa ku jirto unugyadaasna waxay gaarayaan balaayiin unugyada hadda idiin sheegane waxay soo saaraan qofka maskaxdiisa waxyaabaha faraha badanay ku jiraan sida dareenka aqoonta mid ka mida unugyadaas day wax soo gaaraan maskaxda dhan oo qofkaas waa burburaysa waxaana ku dhacaya cudurka loo yaqaano shishrafeniya waayahay maxaa keena waxa keena wax kale ma aan kelinnimada xanaaqa faraha badan iyo cabsida waa waxyaabaha ugu horreeya cudurkaas qofka ku dhac saameeya horta cudurkan waa cudur halis ah mideeda kale haddii aan kuu sheego annaga haddii uu dhaawacna soo gaaro waxaa laga yaabaa inaan isku ilowno laakiin qofka cudurkaas qaba iloobi maa waxayna iska samaysanhayaan aan ku yidhi nolol qayaali ah oo iyago jaabkooda iyo faan cudurkaasaa hadda haya gaal dadkan maxay sheegoyin ilaa hadda ma fahmin tigtor hadalkaaga ma xumo ninkaas waxaa ku tiri jaandani ayaan kula kulansiinaya anigana weli lamaana kulmin iyay tahay jaandanidaas oo maskaxdiisa ka samaysta misna uu la kulmay inaan ogaado waa muhiim horta yuufaa 11 sano markuu jiray habartiis iyo aabbihiis shil baabuuray ku dhinteen shilkaas baabuurne waxaa ka badbaada asiga iyo darawalka oo keliya markaas kadibna sheeko la yaab laa dhacdaba yuufa maxaad samaynaysaa iska dhaaf wiilkayga jaandanidu sawirahay qoftaas ayay ahayd anigana waxaan ogaaday ninkan cudurka fobiga liraa inuu qabo anigana wakhtigaasaa xaqiijiyey ee anjaniyada kale yee taa marka anjaliya waxay ka mid ahayd kalkaalasooyinka aniga ila shaqeeyi jiray asigeena ilaali jirta mar walba anjaliya waxay shaqada soo gelaysa 6 saac wixii ka dambeeya anjaliya raashin ma siis haa ditoore waan siiyey anjaliya bukaanka ma soo fiiris haa waan soo fiiriyey ditoore haya anjaliya cirbad ma turtee haa waan duray hayahe daawooyinka ma siis haa waan siiyey ditoore anjalina magaceeda mar walba sidoo dhagiisa ugu soo dhacaya maskaxdiisa way seefkaraysa maskaxdiisana meel walba iska aaday haba aadda hadday doontee doctore waxaan ku weydiinayaa ninkan dadkan uu maskaxdiisa ka soo wartay sidee ayuu ku kala gartaa inaan ogaadaan rabaaye horta waa saxantaha annaga dhankeenna haddii loo fiirsho kiiskaas waa kiis adag laakiin yuufaa dhankiisa annaga mar walba horta waa na caabiyaa asigaa noo kala sheego qofkuu necb yahay iyo qofkuu jecel yahay intaba muuqaalkooda wuu hayaa oo sawir buuxu sameeya xisaabahaasoo dhan markaan isku soo dhuftay aan ogaada arrintan aniga waayahay doctore daawo ma loo heli karo si uu sidiis hore ugu noqdo annaga horta tijaabooyin aad u yaraan samayn ilaa ay haddana ma ogaanin ninkan daawadiisana titoro keliya maana qof kale gacanta lama geli karto titore daawo waa loo heli karaa ninkan yaxaad ku hadle aniga ayaana daaweynaya yuufa hadalkaygana rumayso run ayaan kuu sheegayaa hadduu wax alaalihi wuxuu rabo aanu qabto laa shaki in uu daawoo waayo yaxaad ku hadle fikirkan intee ka keentay tigtoor aniga igu daa arrintaa anaa qaanqaabka waxaa li lahaa middaas macquul ma adiga qaabka ninkaa lagu bedeli lahay ma haysid
annagana maba diyaarinba qaabka ninkaa lagu bedeli lahaa see ku bedelaya marka muhiimaddeenna maaha in la bedelo ee waxay tahay inaan daryeel daacadnimo ay ku dheehan tahay aan ula tagna asiga middeeda kale maalin hore ayaan baaritaan sameeyey waxaan ogaad inaan daawey karo ninkan adiga waxaa ula dhaqantay tigtor iyo bukaankiisa oo kale see u wada dhaqmaan laakiin naxariis xaggiisa marnaba umaadna firin inaan u fiiriso isku day galgaceel fara badanle inaan siiyo aniga ayaa diyaar u ah wuuna caafimaadi doonaa waad arkaysaa titoore waayahey titoor ahaan maa u siiyahay ma shakhsi ahaan aaba titoore yuufa noloshiisa rashmikaa markay ku jirtay qof wanaagsan ayuu ahaa soo maahan maskaxdiisana ay tamaam ay tahay hadalkayga ma qaldanaan u malaynayaa rashmikaa markii uu waayay ayay maskaxdiisa bilowday in ay dib ay u noqoto xasuuso fara badanna ay gadaal ay u raacdo maskaxdiisana cadaadis badan ayuu saaray maskax bini'aadan waa iska iisi siday wax ku noqoto dadkana waalidiisa ayay arkeen ee fiyoobidiisa maysan arkin aabbo mideeda kale dareenka oo qabo muusig ayuu ku gudbiyaa dadkana waxa ka maqan way arkaan oo keliya laakiin ma dareemaan qofkana waa la dareemaa laga yaabay in uu isbeddelo dareen saxa haddaad siiso qofka bini'aadanka mugdi markii uu ku jiro waxaa qasaba in uu iftiin helo idinkana tigtoorre haddii aad tihiin bukaankiina iftiinkoo arkaya waa inaa iftiin kale oga sii raadisaan anigana xaaladda yuuva waxaa iiga baxay xoogaa wax yar oo aan wax ka qaban karo ditore وريا يوفا نجي استغني ازدج ترتيب adigu waxaa tahay khayraano weyn mar labaad ayaad ii caddaysay dhakhtar feygaa tahay adiga oon jirin nolosheeda haddii wax ka ogtahay mar hore maxaad iigu sheegi weysay maxaad ii khayantay waa ku barya jooji waxa aan wado aniga isoo fiiri marka hore aniga lagama yaabo qof inaan dilo laakiin anigaa isdilaayo kawaan iska siinaa rashmika meeshay aada waa inaan taga dunidan kuma sii noolaan karo waa isdilaa baso aniga yuufa dhegayso aniga waxaan ahaa saaxiibtaada iyo raantaada ilaa ay hadda kula socotay horta ma xasuusataa markaan yaryareen oo nanaca iga dafi jirto oon jir oo kaa daba qaylina isina naceega aan ku dhihi jiray soo xasuusa bal si fiicanna ii fiiri ay soo dhawaanin anni cudur xunaan qaba ee hoosta iga soo golan haddaba waa kuu sheegay hey yaa ku dhahayne adiga cudur ayaad qabtaa kan waay ditoor kan waay ee kan tigtoor miyaa dadka waanana noola keenoo ka mid yahay runtaa miya ahaa waa runtay i aamin ditoorkan faalsi waay nas faalsi waxaan ku fahmay qaamiintaana soo wad mujadido haddii dhegayso tartiib isdeji labadeenna bannaanka ayaan wada aadaynaa adoo deggan weliba nakeen hee soo bax marka